shacabka Soomaaliyeed waxaan leeyahay hambalyo maanta waa maalin taariikh ah gaar ahaan aniga taariikh gooni ii leh maanta waxaa halkan ku qaabilay gudoomiyaha Cabdi Xaashi iyo ra'iisul wasaare ku-xigeenka Mahdi oo maanta halkan ii keenay liiskii aqalka sare ee Somaliland ee gobolada waqooyi alxamdulillah muddo dheer halgan dheer oo aan soo wada marnay saddexdayadaba maanta alxamdulillah waxaan halkan ku haynaa liiska musharaxiinta aqalka sare ee Somaliland shacabka Soomaaliyeed waxaan leeyahay garab istaaga oo hambalyeeya oo ducada waa dhinaciina hawshaan musharaxiinta u taagan aqalka sare ee Somaliland waxaan Ilaahay subxaanahu wa ta'ala uga baryayaa inuu noo soo gabagabowdo horraanta isbuuca tartanka ka dhici doono insha Allah magaalada Muqdisho waxaan rajaynayaa dhammaan musharaxiintan aqalka sare inuu Ilaahay u fududeeyo iyagana Allah subxaanahu wa ta'ala garabkooda galo anigana waa soo dhaweynayaa ducadii waa ku tufay waan garab istaagay sidaan hore idinkugu sheegayna doorashadii way socotay ma sha Allah maanta horumar ayuu dalka ku talaabsaday doorashadii Somaliland sidaan ayay noogu furan tahay wabillahi tawfiiq wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh